waxaa jiray wiil ku koray qoys aad taajiriin u ah. Maalin maalmaha ka mid ah, aabihiisa ayaa go'aansaday inuu safar u geeyo wiilkiisa cid fuqara ah si uu u tuso sida ay u nool yihiin dadka masaakiinta ah ee aan nasiibka lahayn. Ujeedada aabaha waxay ahayd inuu wiilkiisa ka caawiyo inuu qadariyo wax walba oo nolosha la siiyay. wiilka iyo aabihiisa waxay tageen beer ay ku nool yihiin qoys aad u sabool ah. Waxay ku qaateen maalmo dhowr ah beerta, iyagoo qoysaska kala shaqeeyay sidii ay u heli lahaayeen cunto iyo daryeel. Markii ay beerta ka tageen, aabihii ayaa wiilkiisa weydiiyay haddii uu ku raaxaystay safarkooda iyo haddii uu wax ka bartay waqtiga ay la qaateen qoysaskan kale. Wiilkiisa degdeg ah ayuu ugu jawaabay, waa wax cajiib ah, qoyskaasi nasiib weyn ayay lahaayeen. Sidaas ayuu yidhi. Aabihiisa oo jaha wareersan ayaa weydiiyay waxa uu ula jeedo. Wiilkii wuxuu yidhi, anigu hal eey ayaan leenahay, laakiin qoyskaas waxay leeyihiin 4 eey iyo digaag. Waxaan ku noolnahay 4 qof, laakiin ayaga waxay ku nool yihiin 12 qof. Waxay leeyihiin dad badan oo ay la ciyaaraan. Annagu waxaan leenahay hal barkad gurigeena, laakiin iyagu waxaa ku yaala webi aan dhammaad lahayn oo dhulkooda dhex mara. Annagu waxaan haysanaa laambado bannaanka ah si aan wax u aragno habeenkii, laakiin iyagu waxaa u furan cirka ballaaran iyo xidigo qurux badan oo u iftiimiya habeenkii. Annagu waxaan leenahay balakoon yar, laakiin iyaga waxaa u furan dhammaan cirifka dhulka oo dhan. Waxay leeyihiin dhul aan dhammaad lahayn oo ay ku ordaan oo ay ku ciyaaraan. Annaguse waxaan aadnaa suuqa si aan cunto u soo iibsanno, laakiin iyaga waxay awoodaan inay cuntadooda iyaga ku dhooda beertaan. Xayndaabkeena dheer wuxuu ilaaliyaa guryaha iyo qoyska, oo guryaheena waxaa ku xayndaab ayuu leeyahay, laakiin iyaga uma baahna dhisme intaas oo kale ah oo xadidan, maxaa yeelay asxaabtooda ayaa iyaga ilaalisa. Aabihii waa uu aamusay. Ugu dambayntii wiilkii wuxuu ku sii daray, waad ku mahadsan tahay aabe inaad is tustay sida ay u nool yihiin dadka taajirka ah, runtii waa nasiib badan yihiin. Maxaan sheekadaani ka faa'iideynaa? Waxaan ka faa'iideynaa hantida iyo farxadda dhabta ah looma cabiro alaabooyinka maadiga ah ama hantida loo jeeda ee lagu xisaabtami karo. Inaad ku wareegsan tahay dadka aad jeceshahay, inaad ku raaxaysato deegaankaaga dabiiciga ah, iyo inaad haysato xorriyad waxay ka qiimo badan tahay wax kasta oo amaadi ah. Nolosha hodanka ah waxay macnaheedu noqon kartaa waxyaabo kala duwan oo qofba si uu arko. Haddaba, maxay yihiin qiimayaasha iyo mudnaantaada? Haddii aad haysato wixii muhiimku ah, waad iska tiri kartaa inaad hodan tahay, oo waad iska dhigi kartaa oo waxaad isku xisaabin kartaa inaad hodan tahay. Hodantinimadaba waa inaad haysataa waxaad u baahan tahay. Farxaddu ma ahan waxa laga helo hantida, laakiin farxaddu waxaa laga helaa meelo kala duwan, waxaana kow ka ah alla ka cabsiga iyo inaad ogaato waxa dunidani lagu keenay, yaa ku keenay, halkee loo socdaa. Haddii saddexdaasi su'aal aad garato oo aad dabaqdo, hubaal waxaad ku noolaan doontaa farxad. Hodantinimada lacagta maadiga ahna ma xasuusan doontid. darsigeenan yar ama sheekadeenan halkaas ay inoo joogto. mahadsanidin.